walaal diyaaradii markii ay garoonkii beledweyn timid oo soo kormartay qoladii controlka oo ciidanka Djibouti oo degan garoonkaasi beledweyn clearance siiyay inay soo degaan diyaaradii markay soo caga dhiganaysay 200 mitir bacda la soo caga dhigatay dameer ayaa duurka ka soo baxay oo runway gudbay marka diyaaradii dameerkii ku dhacday ka bacdigeed accidentkii sidii iyada ay sabab u ahayd alxamdulillah pilotadii iyo nin qoladan amisom ka u shaqeeyo oo qalabkii ay diyaaradda siday la socday oo pilotada la socday saddexdoodaas ay ahayeen diyaaradda ku jiray marka alxamdulillah ayaga waxba ma gaarin diyaaradii waa laga soo saaray ka bacdigeed waxaan la hadalnay qoladan UN-ka oo helicopter UN-ka inay nasiyaan oo beledweyn tagto oo pilotadii iyo ninkii kale inoo soo qaado markii xamar la geeyay diyaarad tayna ayaan u dirnay soo qaadnay pilotadii xalay habeenimo ayaan halka Nairobi keenay isbitaal Aga Khan ayaa la geeyay waxaan filayaa in haatan adigala hadlayso magaalada Nairobi marka adigu yaa ku xaqiijiyay in shilkaasi uu sabab u ahaa dameerka walaal runtii horta pilotadayna ka kalow ninkaas Amazon u shaqeynaya diyaaradda ku jiray oo cockpit-ka diyaaradda fadhiyay ayaa asagana arkay asagana dhaawac ma gaarin marka xamar ayuu ku xiray shalayto markaan qoladii investigationka accidentkana xamar waxaan u malaynaya inay la hadleen marka xaqiiqo waynu qabnaa inuu dameer ahay qoladii ciidanka Djiboutiyaanka meeshii joogina oo la doonayay inay garoonkaasi sugaan oo maaragtay dameeraha oo kale aynan soo gelin ayagana way confirm gareeyeen in dameer uu garoonkii soo cross gareeyay waxay dhaheen ma aanan arag dameerkaas marka hore markaan horaanna sidii noola sheegay wax inka oo kale way dhaceen beledweyn diyaaradba ayna ku dhicin laakiin dameera oo garoonka agagaarkiisa daaqa marka walaal taasi waa xaqiiqa waa maaragtay arrin aynu hubno pilotadina aan ka hubsanay ninkii kaloo la jirin aan ka hubsanay qoladii Djiboutiyaanka meesha joogayna oo ciidankana ay confirm gareeyaan haatan marka waa sidee xaaladda caafimaad ee duulayaashii diyaaradda waday iyo shaqaalihii kale diyaaraddaasi sarnaa walaal alxamdulillah pilotadii way ladan yihiin wax dhaawac oo gaaray ma leh labadoodiba iyo ninkii kaloo la socday oo qoladan Amazonka dhinacooda ka socday marka shalayto helicopterkii UN-ka markaan ka codsanay oon dirnay beledweyn ka soo qaaday xamar geynay diyaarad kale ayaa xamar ka soo qaaday xalay habeenimo ayaan halka Nairobi keenay waxaan geynay isbitaalka magaaladan ugu weyn oo la yiraahdo Aga Khan dhaqtariintii xaggaasi test badan iyo scans badan aan ka qaadeen waxay noo xaqiijiyeen pilotadii inaynan dhib qabin mar haddii sidaad sheegtay diyaaraddii ay burburtay oo halkaas ay ku basbeeshay waxa la isweydiin karaa yaad u raacanaysaan khasaare idin soo gaaray walaal qof khasuusan oo waddankeenaasi u raacanayna khasaaradaasi ma jirto diyaaradda caymis ayay ku jirtay oo insurance marka qolada insurance-kana waan u sheegnay wax allahi wixii diyaaradda fuulay qaraamaheedii waxaan filayaa inaan qoladan insurance-ka ay bixin doonaan waayadan dambe waxaa muuqataa in shilalka diyaaradaha ay ku soo badanayeen gudaha waddanka marka ma ku tali jirtaan marka inaad sii wadaan howlihii aad wadeen absolutely walaal taa iyada qorshaha way noogu jirtaa waa arrin aan ognahay oona sanadkan khasuusan xoogaha nagu yara badatay khasuusan diyaaradaha waddankan Kenya ka baxo oo Soomaaliya ka operate gareeya shalayto waan la hadalnay waddankeena xaggaas qolada civil aviation-ka ayagana waxaan isku dayaynaa inaan la hadalno oon maaragtay kala tashano sidii gebiganaba aan shaqana ku qabsan lahayn oon commercial aviation u samayn lahayn xaggii safety-gana aan ka wada dadaali lahayn